مسؤولين كترسن وزارة waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ayaa ka qayb qaatay tabarucaad dayr loogu sameeyo dugsiga Sheekh Nuur oo ku yaala xaafadda Kilidhka ee magaalada Hargaysa. waxaana halkaasi ka soo qayb galay dadweynaha ku dhaqan xaafadda agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Professor Maxamed Faarax Xareed, gudoomiyaha waxbarashada bariga gobolka Murudijeex Xuseen Cabdi Cawil Food Cadde. waxaana mas'uuliintani ay hadalka iska daba qaateen in ka wasaaradda waxbarashahan ay ka go'an tahay wixii tabarucaad iyo talaba ee ay ku darsanayaan dugsiga Sheekh Nuur Dayrka loo sameeyo. in markii ugu horeysay olole iska wax u qabsaa laga fuliyay caasimadda gaar ahaan degmada Gaclibaax iskuulka ugu horeeyay oo maanta runtii aynu ka dhisanay dayrkiisa. waxaan u mahadnaqnaa maamulka runtii iskuulkan oo dadka wax qabadka ku santan kamid ah gudiga waalidiinta ay halkan ka hadashay ganacsatada xaafadan gudoomiyaha waxbarashada ee bariga agaasimaha guud maayarka caasimadda dhammaan xildhibaanada ay u shaqo qayb qaadanayay. waxa ka bilaabmay oo xaafadda Gaclibaax qaybta Sheekh Nuur waxa ka bilaabmay iskuulkii xaafadda oo aanu samaynay dayrkii aanu ka bilownay. maanta waxaanu ka bilownay iska wax u qabso. arrintaa waxa ka qayb noqday oo dhammaantoodba gacmaha isqabsaday maayarkii magaalada Cabdiraxmaan Solteelko iyo maayaradii oo xildhibaanadii oo aan cidi ka maqnayn. dayrkaas dugsiga Sheekh Nuur lagu wareejinayo laba toddobaad ka hor baan magaalada Gabiley oo markaa xadhiga ka jaraysa dayr dugsi sare loo sameeyay baan ka soo qayb galay. tana waa tii labaad abaabulkeedina waxbaan ka ogaa. waxaan markaa hore u mahad celinayaa gudoomiyaha waxbarashada gobolka Murudijeex duqa magaalada caasimadda Hargaysa iyo gudidii waalidiintii ganacsatadii iyo shacabka kale bulshada kale ee ku nool xaafadda Sheekh Nuur ee gacanta ka geysatay ninba tabartii sidii loo suurtagelin lahaa dayrkan aynu ku wareejinayno dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Nuur ka wasaaradahaana waxaan aad iyo aad aan farxad noo tahay oo aanu ku ambalaynaa cid kasta oo hore gacan uga geysatay haddana gacan u soo wada. dugsiga waa kii labaad waxa iyaguna hawsha abaabulkeedii ku jira joognaa hawl muddo soo socotay oo ilaa bishii 8aad ilaa bishii 7aad aan idhaahdee qorshaheedu yaalay oo aanu soo wadnay oo kolba meel maraysay ayaa maanta bilowgeedii aynu joognaa. waa dayrkii dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Nuur oo ay dadku dhisanayaan. markii ugu horeysay markii dhibaatada ay ka timid daaqadaha iskuulka ee ardayda iyagoo fadhiya oo wax dhiganaya ay dhibaato ka soo gaadhay oo uu maamuluhu nala soo xiriirsiiyey. waxaan u sheegnay in bal dadka deegaanku inay wax qabsadaan aynu ku dayno. waxaanu ka bilownay gudida waalidiintu markiiba dadkii bulshada oo imanka halka jooga oo mid waliba uu majarafad qaatay ayay dhex galeen. waxay ka soo ururiyeen mid bixiya sibirkii oo ah barqad oo ganacsade xaafadan degan ah iyo alhuda oo iyaguna bixiyay dhammaan sibirka labanka ku baxaya ama jaajuurka aynu arkayno oo dayrka ku baxaya. qaar dhagixii bixiyay qaar ciidii bixiyay. waxaynu arkaynaa wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadku waa wasaaradaha hawsha ugu ballaaran dalka haya. hawsha hayaan waa macallin iyo dhakhtar iyo neeras iyo iskuulka nadiifisadiisii hawl aad u adag bay hayaan. dhaqaale ku filanna ma hayaan. labada wasaaradood waxay qabtaan shaqo aad u ballaaran. sidaa darteed waxaa la gaaray go'aan ah in dawladihii hoosena ay ka qayb qaataan oo iskuuladii hoose dhexe lagu wareejiyo. waxaanu nahay degmooyinka marka la eego degmadii 5aad ee lagu wareejiyo. waxa ka wahayd Berbera, Boorama iyo Burco. Gabiley baa iyadna sanadkii 17ka annagana 18ka Oktoobar in 45 iskuul guddi baan u saagnay assessment. wasaaradda waxbarashadu dadaal qaracaadiye bay samaysay. laakiin dadaalka ay samaysay ardaydeena iyo caasimadda dadkeedoo ballaaran iskuulada wixii ka dhimanna insha Allah taala assessment baa lagu sameeyay. waxaanu doonaynaa 5 iskuul oo 5 degmee waaweyn ah aynaanu ku bilowno iska wax u qabsadan. waxaan u mahadnaqayaa